suldaanka guud ama wabarka guud ee beelaha Madaluug ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Mombasa ee dalka Kenya mudane Xaaji Haruun Nuur Gadiid isaga oo ka soo kicitimay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana si heer sare ah goobta ugu soo dhaweeyay salaadiin dhalinyar haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Madaluug ee ku dhaqan magaaladaasi waxaana goobta soo dhaweynta ah ka hadlay Maxamed Cabdi Xaaji oo ka mid ah waxgaradka goobta ku soo dhaweeyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan soo dhaweynay duqeeni xaajigeeni Xuseen Haruun Nuur Gadiid Maxamed baasu noogu imaaday duqan Madaluug weeyo waan soo dhaweynay adeer soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow cidaadi macaadi dadkaadi ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم وبه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله وسلم ما أنت فرحت لنا وتقيني وبركين ما أنت نرجوه هذا من قسم سلويني ما أنت نقل الشرف عن كم تقامتنا رجباسا تبدو من هاي معناه تبدو من هاي هذين وبحلنا هاي أبيركين سودو أو فرق سودو وحنا قوات كيني ولين قوات كينينا كم مدلو هلا هاو تب إن دخل بحكي مدلو هلا هاو dhanka kale suldaanka ama wabarka guud ee reer Madaluug waxa uu safar ku soo maray ama uu ku tagay 5 bishii shanaad 2025 isaga iyo waftigii uu hogaaminayay ayna ka mid ahaayeen suxufi Abrone iyo duqay kale bulshada reer Madaluug ee degta gobolka Tana River ee waqooyi bari Kenya gaar ahaan magaalooyinka Bangal Kurujo oo ay beeshu degto waxayna xariga ka jareen madrasad quraan oo ay dhalinyarta reer Madaluug isku tashi shacab ugu dhiseen magaaladaasi Kurujo hadaladoodiina waxa ka mid ahaa ogaas xogay waa la qaana xaalidi chairman waa tahay waa wareeray makare abe magaca igu hagaago ii sheega سوساسما يمعني سي شيء horta aniga marka la yiri kaale guest of honor kan noqo bal dhan soo qortay oo hadala way hada ma aqrin karo sabab waxa waa liga hormaray aniga harsan loo ma hadlo Soomaali wixii hada sheegtay ma ku celiya wala daali wixii hada kan waa iska dhigay marka eriga qabo markan loo yimid wala yiri dhalinyarada imaadeen xeedan madrasa rabena dhisan aniga wata serious uma qaadanin sababta waxaan u maleynayaa in iska kaftamay muddo xamaasad bayn dhalinyarada waan soo marnay hadana waa kaas uu taagan yahay ilaa shalay oo dhan ilaa maanta oo dhan meeshaan fadhiyo hal arin ayaan isweydiinahay diintan islaam sayaudu ghariban alayhi soma iyagu marti ah oo kale noqon nabi alayhi salaam markuu diintan bilaabay gurigaas oo kale uu ku jiray daaru alkam yaa dhigay daaru alkam oo dadka diinta lagu baray marka madrasadan la dhisay oo lacag laga bixiyo oo wiilashan dhalinyarada ay juhdi ku bixiyeen aniga madrasa uma arko waxaan u arkaa rixim muxuu qaadaa riximka muxuu qaadaa ما قرينا سميها أما رحمة في صومالي ما ها مو قاعدة الماء صوما وحن والرحم أو نور كي كسب به الدولة خروجه واكن وهذه صفي عن لو استعمال ولا شيء الدين إلهي نك قبته إلهي دين عمر بن الخطاب حير إلهي دين نقول عزي دين عزة مربتين بيا مربتين هون مرتين ماشي على قبل الله لكن خلت يسد حد محان واحد الله يسات دمر كم جوان آوه ما حق قال له لي ها ربادية ما ربادية دي تاي ربادية ويران لي جيت وانا كدي لي مقلعين ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى
إلهي سبحانه وتعالى قري لبدا دربي ما وحي كسو بحايو نوركي كسو بحي دونا آيا قري آيا نولول هذا محا حسوستا النبي لبدا قري قالوا أركمكي محا كسو بحا دين فكروا لا قرسي أدونكي إيست أند ويست سودين تمكاري حكا قبل أول لما قول أو يه لما تقول إلهي ونودس إلهي ونودس كحربة إن ذكر الخروج إن لبدا قول أولش الدنيا ذا كتسو هالجمين كد دلالين كد دنتين يودكي عاوية يودكي مارسية يودكي أودسية يودكي بيسية كله إن ماشي إن نور إلهي كسبية حتى إذا كم حكى لسنا الدين أدون نفتيسة ماشي يونيفرسيتي كتالو مجالات يونيفرسيتي كتالو أما مجال الغناء حتى إنجليز كم كتبت ما المحاجر مجال أكسفورد وحكى خبتان ملي جامعات عسكرية على قديسة جامعات محل نقطة إندستري لن أرداد إيمانايا كوريالي وباهي سوما أنتو وباهي ماشي أكسفورد ومجالات لن حكوت على كليه ولا الخروج لبدا دربي كليه ما هي إلا قفا يستعمل حالي شوفوا جيستو فونا دياتاي لبا مدرسة كلان كاربنا سوما ما لغبتي أنا ما حمقلي جري تمرتي هوري دبلو واي تمرتي هوري دبلو واي تمر دم مرة بناه مركز أنت تمر كان هلا عنه باهي ما كي جرتو وعندي سنة وهي وعندي سنة إن شاء الله تعالى لكن تمرتي هوري سوساز ما مركا أنا واحد بدل مشي عندك أنا كنت دالي مرة وين في الصومالي كبر ما في عين سوما هذا كبر ديهم ويدي سوما الماليسي مركا أنت كلام ربنا قد واجي حد إسلامنا دمر كنا هوياشنا إن الله ضان ربي لكن هذا مجوجان سواء محاوي ومدة محلقات لسه education نور كذا نور و education محاوي علمي هدي الغبين مال لا أراي أدون كان حتى وحاك سكداف علمي وحلا برانا يسكوك اللي برانا يسكداف بريان حاجة كمبيوتر وحوش شيء يسقى وحكوكين ليش اللي قاري فيني أنا كمان حكين جونا ما كي هديها ربنا رجعس إن لا ترتم مين قالوا كريستانا أي محوكب بقي تركينتا مسلمينتا هذا اللي مكة ويسوع سعودان جرمن ويقالنا يعني لما كاسك علينا وعلى حب بنقول حب بديني لما كان هيك إجارين علميهان ماشي سينا نقارن مويان لما كاسك علينا هيك إجارين كاسك علينا إيه قرتي مركب ولا أنا جهارون هان ما دام نين أو بادية جيل ولا يري حاجري جري سومرين أنا ما حنا قانا وحي مقالة نيروبي تعالى سوساس ما مقالة نيروبي محتاجة علمي عروتنا وين وحبرنا that is by forest لبعض نقولي سمعنا إن عنجرة سي أكل كوريا أما أمبولا مين الديجر على أود ميا أود من عنا أنا واحد عنا نرى عنجرة سوما عنجرة نرى سيدا أكل كوريس يلا عنا كان عن عنا ورتا كان هي وحكى الويمانة يمشي سوا أنا بقول كلها العاركيتوا wabarka guud ama suldaanka guud ninba sida uu u yaqaano waxa uu 27 bishii afraad 2025 lagu doortay magaaladaasi Nairobi ee dalka Kenya waxa uuna weli ku jira safar barasho
oo uu bulshadiisa ugu kuurgalayo dhammaantoodba meel kasta oo ay degaan, isagoo oona bilaabay kuna guda jira safaradiisii ugu horreeyey. Dhanka kale waxaa hambalyo u diray wabarka guud ama suldaanka guud ee reer Madaluug, guddoomiyaha dhalinyarada reer Madaluug qaybta dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Cabdulqaadir Haldoor, waxauna ugu duceeyey inuu Ilaahay xilka ku asturo kana dhigo kii dadkiisa mideeya kana saara kala qaybsanaantii qarniyaal ka hor laga dhaxlay dhibaatooyinkii ka dhashay jabkii boqortooyadii Adal Empire dadkana kala hadlaysay. Bulshadana oo degta guud ahaanba geeska Afrika, gaar ahaan wadamada Jabuuti, Kenya, Soomaaliya, Somaliland, gaar ahaan gobolada Awdal, Salal iyo Gabiley, Itoobiya, gaar ahaan gobolka faafan degmooyinka Awbare, Harawa, Wajaale, Danbal ilaa Dirdhaba, Qoraxay, Jarati, Shabeelle ayaana guud ahaan loogu baaqayaa inay dhammaantood ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka ummadooda meel kasta oo ay ku nool yihiin.